macadka Imaamu Nawawi oo ku yaala xarunta gobolka Qorraxay ee magaalada Qabridahar ayaa sare u qaaday tirada ardayda iyo waliba tayada waxbarashada muddooyinkii ugu dambeeyay. Ardayda wax ku barata macadkan oo tiradoodu ay gaarayso 237 arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa sanad dugsiyeedka imtixaamaadka waxay u fariisteen markii ugu horeysay. Ardaydan oo ka gudbay fasalka 7 isla markaana u gudbay fasalka 8 waxaana kormeer ku soo sameeyay mas'uuliyiin isugu jira maamulka macadka Imaamu Nawawi iyo maamulka magaalada Qabridahar. Inta kadib waxaana u kurgaleen geedi socodka imtixaamaadkan sanad dugsiyeedkan ee macadkan. Inta kadib ayaa kulan ay ka soo qayb galeen madax dhaqameedyada culimada diinka waxgaradka ayaa wuxuu ka dhacay gudaha macadkan waxaana kala qayb galay mas'uuliyiinta macadka Imaamu Nawawi iyo qaar kamida maamulka magaalada Qabridahar. kulankan waxa laga wada hadlayay geedi socodka waxbarashada macadkan iyo sidii loo dardargelin lahaa. waxaana kulankan ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo ah isuduwaha jaaliyadka iyo macadka Imaamu Nawawi ee magaalada Qabridahar. waxaasna kulankan ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Al-Sunna Mudane Xasan Yuusuf. waxaana kulankan isna ka hadlay maamulaha macadka Imaamu Nawawi ee magaalada Qabridahar Suldaan Cumar. waxaan kaloo ku mahadinayaa dadka arintan bilaabay ee isku dayay oo ay kamid yihiin jaaliyadka dibadda jira oo jaaliyadda Nairobi ka tahay iyo Mareykanka iyo Ingiriiska oo isdadaal badan ku bixiyay macadkan Imaamu Nawawi in la furo garab istaagayna haddana oloolo culus u wada sidii dhismihiisii loo bilaabi lahaa isaga iyo masaajid asagna magaalada dhexdeeda oo jaamica oo ummadu ay ku tukato ay ku cibaadeysato. macadkan Imaamu Nawawi ee magaalada Qabridahar wuxuu aqoonsi ka haystaa dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waxaana wada shaqayn fiican u leeyahay maamulka gobolka Qorraxay maamulka heer degmo iyo maamulka magaalada Qabridahar. waxaana lagu bartaa culunta maadiga ah iyo culunta diiniga ah. waxaana macadkan u yaala qorshaha 5 sano taasoo ardayda loogu talagalay in ay ka gudbaan dugsiga sare. waxaana macadkan uu qiimeyn ku sameeyaa ardayda ku soo biiraysa in ay wax ka barato. waxaan la filayaa in bishan July dhexdeeda dhagax dhig lagu sameeyo dhismaha macadkan Imaamu Nawawi oo ah dhisme ay ku baxayso lacag aad u fara badan taasoo ay ku baxayso lacag ka badan 500,000 oo dollar. waxaana mas'uuliyiinta macadka Imaamu Nawawi qaybaha bulshada sida waxgaradka culimada diinka odayaasha ku dhaqan xarunta gobolka Qorraxay gaar ahaan magaalada Qabridahar ay fariin u direen jaaliyadda dibadda inay ka qayb qaataan dhismaha macadkan oo wax weyn ugu fadhin doona bulshada ku dhaqan gobolka Qorraxay dhanka waxbarashada. aasaaskii macadkan Imaamu Nawawi waxa markeedii horeba iska lahaa jaaliyadda ka soo jeeda deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qorraxay. haatana waxa looga fadhiyaa meel kasta oo joogan jaaliyadda Qorraxay inay ka qayb qaataan dhamaystirka macadka Imaamu Nawawi. Axmed Kaabe, Universal TV, Jigjiga.